madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Somaliland injineer Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Shire Sayli oo ay weheliyaan madaxda heer gobol iyo heer degmo wasiiro ka tirsan xukuumadda Somaliland salaadiin aqoon-yahan waxgarad iyo haweenaya waxay habeenkii xalay ka qayb galeen munaasabad ballaaran oo lagu xuseeyay sanad guuradii 23aad ee ka soo wareegtay goon isku taagga jamhuuriyadda Somaliland oo sanad walba la xuso 18 May munaasabadan oo ahayd mise heer saraha loo soo agaasimay isla markaana lagu qabtay guriga martida ee magaalada Boorama ayaa intay munaasabadaasi ay socotay waxa lagu soo bandhigay ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka ee caanka ku yihiin gobolada galbeedka Somaliland iyo ruwaayado ka turjumaya horumarka kala duwan oo ku talaabsaday dalkan jamhuuriyadda Somaliland waxa halkaas ugu horeyntii kaalay duqa degmada Boorama mudane Salebaan Xasan Xadi waxa uu tilmaamay waxaynu ogsoonahay maanta qiimaha ay noo leedahay diin May oo ah xuskii 23aad oo aan filayo caawa farxadii sanadkii hore aan ku xusnay halka farxadii inay labanlaab tahay aan filayaa maanta wasiirka biyaha ee jamhuuriyadda Somaliland Xuseen Axmed Cabdille oo sagna munaasabadaasi ka hadlay ayaa waxa uu hoosta ka xariiqay qadiyadda Somaliland inaanay gorgortan lahayn inay meel u socoto inay mujtamac sax ah haysato ilaa intaas uu keenay noo gacantayna baa mahad koobaad leh farasaabka gobolka Abdul Mudane Cabdu Axmed Ayir oo isagu munaasabadan soo agaasimay isla markaana halkaasi ka hadlay ayaa waxa hadaladiisii kamid ahaa maanta waa 18 May waa 23 guuradeeni waxa aynu u dabaaldegnay aad iyo aad ayaan u hambaliyaynayaa shacabka reer Somaliland meel kasto ay joogaan gudo iyo dibad waxaan leeyahay Allah inagu gaarsiiyo nabad barwaaqo horumar caafimaad iyo ictiraaf aynu helno ugu dambeyntii waxa halkaasi ka hadlay isla markaana munaasabada soo xidhay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Somaliland injineer Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Shire Sayli ayaa waxa uu si qoto dheer uga waramay horumarka kala duwan ee ku talaabsaday dalkan jamhuuriyadda Somaliland isagoo madaxweyne ku-xigeenkuna uu tilmaamay in beesha caalamku ay si degdeg ah u aqoonsato dalkan jamhuuriyadda Somaliland caawana baa u diraya walaalaheena Soomaaliyeed waxaan leeyahay war shalayna anaga inila nimidnay kubanimada iyo midnimada anaga inila nimidnay iyadoo aan jeclayn in ummadda reer magaca Soomaaliya ku hadashaaba meel isku timaado tiisa waxay noqotay wax riyaa oo suuragal weeyay marka 3 sano kadib maanta waxaan leeyahay waxaan ku taraynaa idinku sidii ay u wada dal hayn nagu ictiraafaydu maanta culayska idin saaran walaalihiina Soomaaliya saaran lagu jecel Ilaahay ka dulqaado inay maartay dal nabad noqdaan oo dawladnimadu soo noqoto waxaan leeyahay ha noqonina islaantii xaabadii qaali karoo ku darsatay ha noqonina intii nibaad la dhibantihiin annagana fasaxa kastaba ahaatee waxa si weyn looga dabaaldegay degmooyinka tuulooyinka hoos yimaada gobolada Awdal iyo Salel xuska 18 May ee ah sanad guurada 23aad ee ka soo wareegtay goon isku taagga jamhuuriyadda Somaliland iyadoo sidaasina ay u xaqiijiyeen gudoomiyaasha degmooyinkaasi khadka taleefanka nagula soo xidhiidhay balse waxa xusin mudan in saaka madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Somaliland injineer Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Shire Sayli oo aroortii uu booqasho uu ku tagay isbitaalka Dr. Aadan Faarax Abraad ee magaalada Boorama oo halkaas ula qaatay bahda caafimaadka ee gobolka Awdal intaasi kadib markaa uu kulankaasi u dhamaaday waxa uu si rasmi ah madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Somaliland u anbabaxay dhinacaas iyo magaalada Hargeysa